Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal iyo dhagaystayaalba kusoo dhawaada cashirkeenii barashada luuqadda afka Ingiriisiga. Magacaygu waa Xasan waxaana cashirkan iga imanayaa Xasan Qurani channel. Hi everyone, this is Hassan coming from Hassan Qurani channel. For today's lesson we are going to learn adverbs of time. Waxaan dhiganaynaa maanta cashirka adverbs of time leeyahay ayaan dhiganaynaa. Bal ku soo dhawaada daawadayaal iyo dhageystayaalba meel aad joogtaan caalamka. Haddii daawaday marka aad nagu soo biirayso waxaan jeclaan lahayn inaad cashiradii bilowgii aad ka soo bilowdo maadaama aan socono cashirka 65 waqtigan xaadirka ah. Haddii se daawaday aad runaantii ku cajabiyaan fiidiyoyadu waxaanu jeclaan lahayn inaad subscribe aad siiso si mar walba aad ula socoto. Aan gudagalno cashirkeenii. Let's dive in. Barashada luuqadda afka Ingiriisiga. Learning English language. English language. Casharka 65. Lesson 65. Adverbs of time. Adverbs of time. Adverbs waxay ka dhigan yihiin waa ficil kaabe. ficil kaabayaal ayaa la yiraahdaa oo adverbku ficilka ayuu kaabaa, ficilka ayuu wax ka sheegaa. Marka waa adverbs of time waa ficil kaabihii marka ka hadlayay time ee ka jawaabayay su'aasha ah goorma xillima ayuu ka jawaabayaan. Macnaha adverbs of time waa time. Please adigoo raali ah subscribe our channel as subscribe ku samee. And if you really like the videos haddii run ahaantii ay ku cajabiyeen oo jeceshahay markaa fiidiyoedan send your feedbackadaada ambase talo iyo tusaalahaagaba ku dir hasanqurani@gmail.com kusoo dir halkaasi oo run ahaantii aan dhurayga kaaga soo jawaabi doono su'aalaha qabtaba. Garanay adverbs of time. Adverbs of time. And adverbs of time waxa uu markaa ka hadlayaa waa ficil kaabaha ka hadlaya time-ka. Tells us wuxuu inoo sheegayaa when goorta ama xilliga an action dhacdo happened ay dhacday. But laakiinse weliba also wuxuu wax ka sheegayaa for how long. Markaysa intee in leeg buu ficilkaasi socday ama u dhacayay amase how often intee jeer buu soo noqnoqdaa. Markaysa how often do you go to school. Markaysa intee in leeg baad iskuulka tagtaa markaa ay ka dhigan tahay markaa ma maalin walaa tagtaa ma weekii 5 cishaa tagtaa how often intee in leeg markaas. Adverbs of time ficilkaabaha ka hadlaya markaa time-ka are invariable. Macnaha waxa weeyaan waa ballaaran yihiin oo waa badan yihiin. They are extremely common in English. They are extremely common in English. Aad ayay ugu badan yihiina maxaan ku dhahdaa in English luuqadda Ingiriisiga. Adverbs of time ficil kaabaha ka hadlaya waqtiga have standard positions waxay leeyihiin meelo markaa u caadiyo lagu yaqaano in a sentence jumladaha depending on iyadoo ku xiran what the verb of on what the adverb of time is telling us. Iyadoo ku xiran tahay waxa uu inoo sheegayo ficil kaabaha waqtiga ka hadlaya inaka. Adverbs ficil kaabuhu ama ficil kaabayaashu that tell us when waa kuwa inoo sheegaya maxaan ku dhahaa when. bal inala fiiriya waa adverbs ficil kaabayaasha that tell us when kuwa inoo sheegaya waqtiga ama xilliga wax dhacaan. Adverbs that tell us when are usually placed at the end of the sentence. Haddaba ficil kaabayaasha kuwa inoo sheegaya waqtiga inoo sheegaya ama xilliga inoo sheegaya ayaa inta badan la dhigaa usually ayaa sida caadiga la dhigaa aan dhahe at the end of the sentence. Markaysa
dhammaadka jumladda la dhigaa ayaa la dhigaa. Examples tusaalayaal waayo markasta tusaale ayaan bixinaynaa wax kastoon sheegno. Uma ninka la yidhaahdo went to our house yesterday ayaa tagay gurigeyga shalay toole. Adverb of time waa maxay? waa yesterday shalay toole. su-aasha wuxuu ka jawaabaysaa when. haddaan halkaas su-aal ka dhinacaysa when did Umar go to our house? goorma ayuu Umar gurigeyga tagay? jawaabtu waxay noqonaysaa Umar went to our house. Umar wuxuu gurigeyga tagay yesterday shalay toole. I'm going to tidy my room tomorrow. waxaan ku tala jiraa inaan iska habeeyo oon iska hagaajiyo qolkayga tomorrow beri toole. waxay ka jawaabaysaa su-aasha when. When are you going to tidy your room? goorma ayaad ku tala jirtaa inaad qolkaaga iska habayso iska hagaajiso? when. marka dhammaan waxa guduudka ku qoran ama casaanka ku qorani waa kuwa sheegaya waa kuwa la yidhaahdo adverb of time ama adverbs of time weeyaan oo waqti ay sheegayaan waxayna ka jawaabayaan ay jawaab u yihiin su-aasha ah when goorma. I saw Ahmed today. Ahmed maanta ayaan arkay. su-aal haddaan ku weydiiyo waxay noqonaysaa when did you see Ahmed? goormaad Ahmed aragtay? jawaabtu waxay noqonaysaa I saw Ahmed. waxaan Ahmed arkay today. su-aasha dushaan ka keenaya daawada iyo dhegaystaba kuma qornayn meesha. I will call you later. I will call you later. hadhow baan kusoo wici doonaa. I will call you later. hadhow baan kusoo wici doonaa. later ayaa maxaan ku rahdaa goor dambe ama hadhow ah. su-aal haddaan ku weydiiyo waxay weeyaan when will you call me? goormaad isoo wici doontaa aniga? markaasaad ku jawaabaysaa I will call you. waxaan kuu soo wici doonaa later. dhowaan ayaan kusoo wici doonaa ama goor dambaan kusoo wici doonaa. I have to leave now. waa inaan imika socdaa. I have to leave now. waa inaan imika socdaa. When do you have to leave? su-aas weya su-aasha waxaa loo dhigayaa when do you have to leave? goorma ayay tahay inaad socotaa? I have to leave now. waa inaan imika socdaa. waayo mar kastiba daawada iyo dhegaysta ogow waxaanu ka jawaabaynaa su-aasha ah when baanu ka jawaabaynaa. I saw that movie last year. waxa aan daawaday oon arkay that movie filimkaasi last year sanadkii hore. su-aashu maxay noqonaysaa? baldhaha. okay baldhaha iniku when did you see that movie? ma odhan kartaa when did you see that movie yesterday last year? no. su-aashaabad waxaad doondoonaysaaba waa last year. markaad su-aasha la timaado when waqti baad raadinaysaa. marka when hadday timaado waqti halka haddaan ku idhaa ka waran goorma ayaad filimka daawatay shalay toole? sax miya? no. khalad waay. when did you see that movie? goormaad filimkaa daawatay? I saw that so ma odhanaysid waa inaad tira I saw that movie last year. filimka waxaan daawaday sanadkii hore. okay this year sanadkan. last year sanadkii hore. next year sanadka dambe ee 2019 next year. gartay. putting an adverb tells us when at the end of a sentence is a neutral position, but these adverbs can be put in other positions to give a different emphasis. All adverbs that tell us when can be placed at the beginning of the sentence to emphasize the time element. Some can also be put before the main verb in formal writing, while others cannot occupy that position. gartay
putting an adverb dhigitaanka la dhigayo ficil kaab that tell us ka inaka inoo sheegaya when goorta markaysa la dhigayo marka at the end of a sentence dhamaadka jumlada is a neutral position waa maxay waa meel neutral oo maxaan ku raaa iska dhexdhexaada oonan wax ama carabku adkayn ah ama maxaan ku raaa weeg oo daciifnimo ayna ku jireen laakiin iska neutral oo caadiyahan loo hadlo iska meel dhexaada waay but laakiinse these adverbs markaysa can be put waxaa la dhigi karaa in other positions meelo kale macnaha meelo kaloo jumlada ka dhex mid ah moogtahay to give a different emphasis si maxaan ku dhahdaa carab adkayn macnaha ka duwan ama macnada maxaan ku dhahaa adkayn ka duwan oo bixiyo emphasis macnaha waxa weeyaan oo wuxuu carabkii lagu xajinaya moogtahay oo si qofka dhegeystaha ama qofka lala hadlayay ay macna u samaysa moogtahay waayo markasti oo hadashaa toonka hadalkaagu daawada iyo dhegeyste waa la kala karaa inay cadho ku jirto inay amar ku jirto inay edeb ku jirto iyo inay edeb darro ku jirto hadalkaaga waa la garan karaa all adverbs ficil kaabayaasha oo dhan that tell us kuwa inaka wax inooga sheegaya when markaysa xilliga ama waqtiga can be placed waxa la dhigi karaa at the beginning of the sentence markaysa bilowga jumlada to emphasize the time element si arabka loogu xajiyo markaysa waqti xilliyeedka moogtahay macnaha ina waqtiga laga hadlayo in arabka lagu xajiyo some can also be put qaar yaka kamid ah can also be put ayaa sidoo kale la dhigi karaa before the main verb ina ficilku laga soo horeysiiyo macnaha mar walba waxa ugu horeysa maxaan ku dhahaa magacuyaal ba u horeeya magacuuyaalkana ficilka ku xiga marka waxa lagu leeyahay waxa u dhaxaynaysa magacuuyaalka iyo ficilka u dhaxaynaysa marka ficilka uu ka soo horeynayaan moogta put before the main verb waxa la dhigayaa maasa ka hor ficilka meesha ku jira informal writing moogtahay qoraalada markaasi formalka ah ee aanan de friendly iyo waxa aan loo dirdirayna maxaan ku dhahaa officialka ah while others marka qaarkoodna ama qaarka kalena marka cannot occupy that position ayna halkaas oo kale ayna geli karin ayna qabsan karin ma occupy that position aan looga jeedaa ayna qabsan karin halkaas ama ay geli karin tusaale halba u fiirso examples later Uma ate some porridge waa maxaan ku dhahaa borashka caadigii later Uma ate some porridge goor dambe ayuu cunay Umar waxoogaa borasha the time is important later ayaa muhiima imiko emphasize-ka la saaraya maaha borashka la cunay bal halkan u fiirso Uma later ate some porridge this is more formal tani waa maxay waa official weeyaan like a police report sida maxaan ku radaa war uu soo saarayo maxaan ku radaa police-ko kale oo rasmiya weeyaan Uma ate some porridge Umar ayaa cunay waxoogaa porridge later markaysa xilli dambe this is neutral tani waa maxay waa neutral waa caadi oo waa meel dhexaad waxa weeyaan wax carabka la saarayo oo sida caadiga loo hadlo weey neutral oo waa meel dhexdhexaad weey no particular emphasis macnaha wax carab xajin ah oo carabka lagu xajinayo ay ma jirto dadka intooda badan way fahmayaan markaan leeyahay carabka lagu xajinayo macnaha waxaan ka wadaa tilmaam macnaha gaaro oo qofka soo jiidato toon qofka soo jiita ma jiro ama cara ka muuqato ama maxaan ku dhahdaa wax gaara loo jeedo ama codsi ka muuqda laakiin waa sida caadiga loo hadlo adverbs that tell us for how long ficil kaabayaasha
kuwa innaka inoo sheegaya for how long bay tan inoo sheegaysaa waqtigii waa jiraaye laakiin how long intee in leeg ma arkaysa ma maalintii oo dhan ma sanadan ma 10 bilood ma hal bil how long ma arkaysa how long will you ma arkaysa work as a cleaner intee in leeg baad nadiifiye aad ka shaqayn doontaa how long will I be a teacher intee in leeg baan macallin sii ahaan doonaa this is ma arkaysa as long as I live ilaa intaan noolahay and I will be ma arkaysa a teacher macallin ayaan ahaan doonaa gartay adverbs oo ficilka habayaasha that tell us kuwa inaka waxay nooga sheegaya for how long intee in leeg are usually placed ayaa sida caadiga ah usually sida caadiga ah placed la dhigaa inta badan Soomaalida bida ayaa dhibtay moogtahay and I'm very careful aadna waa u digayaa moogtahay placed haddaan inka idhaahdo ba idhaawan khalad bay noqonaysaa moogtahay usually placed waa inaan afka hore ka hadlaa placed waa inaan afka hore ka hadlaa placed at the end of the sentence waa inaan dhignaa dhammaadka jumlada examples tusaale ahaan she stayed in the Pierce house all day waxay joogtay guriga reer Pierce ayay joogtay all day maalintii oo dhan how long intee in leeg all day maalintii oo dhan intee in leeg bay maqnayd all day maalintii oo dhan way jawaabto my mother hooyaday lived in France waxay Faransiiska ku noolayd for a year sanad how long did your mother live in France su'aashaas ka jawaabaysaa how long my mother lived in France for a year hooyaday waxay Faransiiska ku noolayd for a year sanad please markaysa pay close attention to my pronunciation when you are watching my videos the pronunciation is one of the most important part of the English language akhriska habka loo akhrinayo waa mid ka mida ama midka aadka ugu muhiimsan inaad luqadda afka Ingiriiska runaantii aad barato pronunciation si khalada oo qalloocda inay kelmadu ku galin markaysa my mother lived in France for a year no the British accent is not year you have to say for a year I have been going to this school since 1996 waxa aan iskuulka tagayaa waa maxay waa tagaysaa goormaad bilowday ilaa iyo sanadkii 1996 waan dhigan doonaa waa present perfect continuous tense waa wax bilaabmay goor hore ilaa iyo imikana socda may fahamtay I have been living in France for 17 years hataa tira balka waran I have been living in France for 17 years waxaan Faransiiska ku noolahay 17 sanadood goormaad bilowday markaa ku noolaashiisa 17 sano ka hor baad bilowday maantana waad ku nooshahay sanadkii waxaad timiday maxaan ku dhadaa 2001 baad timiday hadaan khaldanayn ilaa iyo imikana waad ku nooshay si joogtaa I have been teaching English for many years waxaan Ingiriisiga dhigayaa for many years sanado badan te mar horena waan bilaabay ilaa imikana waan kartay su'aasha maxay ka jawaabaysaa waa markaan ku weydiiyo how long have you been living in France how long have you been going to this school intee in leeg baad iskuulkan dhiganaysaa oo tagaysaa marka waxaad la soo boodaysaa I have been going to this school since 1996 waxaan iskuulkan aan tagayaa ilaa iyo sanadkii 19 ama laga soo bilaabo sanadkii 1996 ilaa maantadan aan joognayn hadlayna weey waqtigaasi muhiim weey daawada iyo dhageyste iyo ardayda ku xidhanayba waxa weeyaan inay waqtigaasi aad uga foojinaado waa muhiim weey waa su'aal waa waqtiga ugu muhiimsan ee inta badan maxaan kula ka hadla
inta wax la qabanayo si loo ogaado waxa tiri shaqadan baan ka shaqeeyaa markaaba waxaan iska soo jarayaa how long have you been working this job how long have you been working this job shaqadan intee in leeg baad ka shaqeynaysaa I have been working markaysaa for this job since markaysaa 2001 waxaan ka shaqeynayaa ilaa sanadkii 2001 muhiim waaye waqtigaasi in these phrasal verbs in these adverbal phrases that tell us for how long in jumladahan ficil kaabka ah that tell us kuwa inaka wax inoo sheegaya ay ka hadlay for how long intee in leeg sida kelmadda for is always followed by an expression of duration for waxa had iyo jeer weheliyo oo la socda an expression oraah ka hadlaysa of duration waqti xilli ka hadlaysa while marka sinisna is always followed by a had iyo jeer ay la socoto by an expression oraah ka hadlaysa of a point in time waqti cayiman ka hadlaysa waqti cayiman iyaad sheegaysaa ood leedahay laga soo bilaabo sanadkii 1996 waa waqti cayiman laakiin for markaad leedahay waa muddo waa cabir weeye markaysaa waa muddo 10 sano ah exact ma muuqto waqtigii saacadii kama soo bilaabaysid laakiin muddo sanada muddo 10 bilooda muddo maxaan ku raashan 5 sano ah waa maxaan ku raahdaa cabir weeye not exact meesha kama soo bilaabaysay labadaaba waa optional oo waad isticmaali kartaa ka doonto ama for baad isticmaali kartaa ama waxaad isticmaali kartaa imika halkan kale yahay I have been going to this school since 1996 waxaan oran karaa I have been going to this school markaysaa for 20 years cidi kuguma haysato I have been going to this school markaysaa for 20 years muddo 20 sano ah waa markaanad waqtigii saxdii ahayd exactly aanad garanayneed marka cabirka guud ku dhufateed aad saa ugu dhufanaysaa muuqta laakiin marka exactly aad sanadkii hubteed garanayso saas oo kale aad u hadlaysaa I have been going to this school since 1996 halka waan isla garanay let's go back aan ku noqono hore u sii socono examples tusaale ahaan waqtiyadan aad bay muhiim u yihiin I stayed in Switzerland for 3 days waxaan Switzerland aan joogay for 3 days 3 maalmood ama maxaad oran kartaa I stayed in Switzerland since maxaan ku dhahay Monday baad oran kartaa muuqata since Tuesday ilaa isniintii baan yaan joogay ilaa salaasadii baan joogay haddaad maxaan ku dhaha dusha aad ka sheegto oonad exactly anad inaad sheegin aad rabta oo maxaan ku dhahdaa aad dusha ka koobtana waa adiga odhanaya maqsa for 3 days I stayed in Switzerland for 3 days 3 maalmood baan joogay muddo 3 maalmood I am going on vacation for a week waxaan fasax galayaa markaas oon fasax tagayaa for a week muddo 7 ah and I have been riding horses waxaan fardaha markaa kaxaynayaa for several years markaysaa muddo dhowr sano ah markaysaa for markaas isticmaasho waa convenient macnaha waa ka raaxo badan tahay mugto oo sinista waxa lagaaga baahan yahay exact mugta laakiin for markaad tiraahdo muddo dhowr sano ah marka dhowrka sano maxay noqon kartaa 4 sano noqon kartaa 5 sano noqon kartaa 6 sano noqon kartaa you don't know ma garan kartid the French monarchy boqortooyadii markaa Faransiisku lasted waxay ku dhamaatay for several centuries markaas dhowr qarni muddo dhowr qarni ah for several centuries muddo dhowr qarni ah I have not seen you since Monday kulamaan kulmin ama se kumaan arag adiga ilaa iyo isniintii markaysa maxaan oran karaa I have not seen you markaysa for 4 days muddo 4 maalmood kumaan arag laakiin maxaa la yidhi I have not seen you adiga kumaan arag since Monday ilaa iyo isniintii waa sax gartay Ahmed ninka la yidhaahdo has been working here since 1997 Ahmed wuxuu ka shaqaynayay maaha ka shaqaynayaa here halkan since 1997
ilaa iyo sanadkii 1997 daawada iyo dhagaysta ma oran kartid Ahmed is working here ma oran kartid way ka duwan tahay markaan sidan oo kale aanu hadlayo waxa weeyaan waxa dhacaysa marka Ahmed inuu nalaba joogin ba markaan leeyahay Ahmed has been working here since 1997 on sheekuun ku keenay mugtahay laakiin ogow daawade markaan ka hadlayno present continuous tense waa waxaanu ku dhiganay in maxaan ku yiraahdaa ficilkii lagu dhex jiro marka la qabanayo sida imika aan hadlayo kala leeyahay I am explaining the lesson ashirkan sharaxaya sidaas oo kale lagu hadlaa laakiin marnaba present continuous tense ma ku dari kartid since iyo for ma oran kartid and I am working here since iyo for no that is absolutely wrong if you want to tell someone how long you have been doing something please you have to use present perfect continuous tense or aan dhigan doono Ahmed has been working here since 1997 Ahmed wuxuu halkan ka shaqeynayaa ilaa sanadkii 1997 macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay waxa uu Ahmed shaqada bilaabay laga soo bilaabo sanadkii 1997 ilaa iyo maantadan aan joogno There has not been a more exciting discovery since last century macnaha ma jirto soo saarid xiisa leh oo timaada markaasi ilaa iyo qarnigii ugu dambeeyay macnaha ay ka dhigan tahay qarnigii hore ayaa ugu dambeysay wax discovery soo saar xiisa leh oo la sameeyo There has not been a more exciting discovery since last January discovery waa wax maxaan ku radaa la soo shaac saaro oo hore u jiray oo banaanka la keeno oo kale manaha ma jirto soo saarid xiisa leh ilaa iyo qarnigii dhamaaday marka qarnigii dhamaadaa yaa la soo saaray bay ka dhigantay wax xiisa leh laakiin qarnigan aan ku jirnaa waxba lama soo saarin garanay aan u tagno ficil kaabayaasha adverbs that tell us aan tagno markaasi ficil kaabayaasha ka hadlaya how often ti how long waxay ahayd waqtiga la ogaanayay macnaha inta aad wax ka qabato laakiin how often waxay ka jawaabaysaa inta jeer intee markaysaa goor ama intee jeer baad waxaa samaysaa markaan jeer leeyahay dadka qaarkood waxay moodayaan jeertii xawayaanka ahayd bay moodayaan mugto ya laakiin maaha macnaha intee goor ama xilli ayaad wixii samaysaa oo kusoo celcelisaa masalan sida how often do you train oo kale I train 4 days in a week I train 4 days in a week 4 maalmood ayaan ahayn toddobaadkii train gareeyaa how often do you go to your work markaysaa intee oo xilli ayaad shaqadaada tagtaa intee jeer baad macnaha shaqadaada tagtaa markaysaa kasal I work markaysaas 5 days in a week 5 maalmood baan weekii shaqeeyaa great adverbs ficil kaabayaasha that tell us kuwa inaka wax inooga sheegaya how often markaysaa intee jeer ama intee oo goor baad wax qabataa oo expresses ayaa caddaynaya oo sheegaya oo muujinaya the frequency of an action soo noqnoqodka ama joogtaynta maxaan ku yidhahdaa fal ama ficil inta uu ficilku soo noqnoqonayo they are usually placed wax sida caadiga la dhigaa before the main verb waxaa laga hadlayaa ficil kaabayaasha daydaas waa ficil kaabayaasha waxaa sida caadiga la dhigaa ka hor maxaan ku dhahaa ficilka muhiimka meesha ku jira but after auxiliary verbs markaysa laakiinse haddii ficilku auxiliary uu wato uu ka dambaynayaa markaasi maxaan ku dhahaa auxiliary-ga mayvand haddii ficilkii matalan I have seen oo kale hadday tahay I have seen markaas waxa weeyaan have-ta iyo seen-ta ayuu kala dhex galayaa mogtahay marka have-tiina waa ka dambeeyaa verb-kiina waa ka soo horeeya marka waa u dhexeeya way labadooda soo ma
The only exception waxa quraatay ka reebani is waxay tahay when the main verb marka ficilka meesha matalaya muhiimkii is to be uu yahay ficilka ahaanshaha ah way ka duwanaanaysaa oo muxuu ahaansho noqonayaa ahaanshaha had iyo jeer maxaan ku radaa ficil kaabka ayaa ka dambeynaya in which markaas waxa la yiri in which case halkaasi oo the adverb goes after the main verb markaas markay noqoto to be waxa weeyaan ficil kaabuhu uu ka dambeynaya ficilka halkan ayaan ku arki doonaa wadaan arkaya I often eat vegetarian food waxaan had iyo jeer cunaa cuntada ayna hilibka iyo waxaasi ku jirin ama dufanku ku jirin baan inta badan cunaa I often eat waxaan inta badan cunaa vegetarian food cuntada ayna dufanka lahayn ee markaa hilibka iyo waxaas ayna ku jirin iyo digaaga iyo wixii dufan leh nool oo dhan gartay and he never drinks milk and ma cabo ama and he never drinks milk ma cabo caanaha you must always see this is must auxiliary way fastanna waa ficilkii adiga arkay oo kala dhaxaysa mar hadii ficil jumladu ay kalkaaliye wadato ama auxiliary ay wadato wad arkaysaa waa kala dhaxaynaysaa mugta laakiin halkaas oo kale ma oran kartid you always must fasten ma oran kartid waa fool xumaanaya you must always fasten your seat belt hadiya jeer waa inaad xirato suunkaaga markaasi haddaad baabuur saaran tahay mugta iyo haddaad diyaarad saaran tahayba and I am seldom late uu ka duwan yahay ficilka am waayo am xagee ka timiday am daawad waxay ka timiday to be waa ficilka ahaanshaha waa adiga arkaya seldom way ka dambaysaa laakiin halkan bal u fiirso jumladan I often eat waa adiga arkaya it waa ficil often laakiin way ka soo horeysaa mugta marka ficiladaas oo dhan ee kale waxa weeyaan ficilka habka uu ka soo horeynaya laakiin ficilka ahaanshaha to be sida am is are iyo being iyo was were will be waxaas oo dhanba ficilka habku waa ka dambeynaya daawe I am seldom late macnaha way yar tahay intaan soo daahay he rarely lies macnaha si dhif ayuu been u sheegaa macnaha waa dhif waa naadir siduu been u sheegaa he rarely lies waa naadir siduu been u sheegaa gartay many adverbs adverbio badan that expresses oo ka hadlayo muujinaya frequency joogteynta sida uu macnaha ficilku u soo noqnoqonayo can also be placed ayaa sida caadiga la dhigi karaa at either the beginning ama bilowga la dhigi karaa or at the end of the sentence ama dhamaadka jumladaba la dhigi karaa optional tahay although inkastoo some cannot be ay qaarkood sidaa noqon karin when they are placed in these alternate positions marka positionadan oo kale in la dhigo the meaning of the adverb macnaha adverbku is much stronger waa ka in xoog weynaanaya mogta awoodiisa ayaa weynaanaysa mogta okay bal marka tablekan aan tagno adverbs that can be used in two positions waa ficil kaabaha la dhigi karo ama lagu isticmaali karo in two positions maxaan ku radaa laba position ama laba goobood labada goobood waxay kala yihiin stronger position waa position marka uu ficilku awood yeelanayo jumladu awood yeelanayso iyo weaker position iyo mid ay daciif tahay oo ayna jumladu awood saasi lahayn frequently oo ka dhigan si joogta ah I visit France frequently waxaan Faransiiska u booqdaa frequently si joogta waa strong bay ku leeyihiin waa stronger waa awood bay leedahay jumladaasi iyo I frequently visit France si joogta ayaan u booqdaa Faransiiska macnaha waxba iskama bedelayso laakiin toonka ayay ku leeyihiin iyo kala quwad leh generally si good bay ka dhiganta generally si good I don't like spicy foods ma jecli cuntooyinka markaasi kulkulayl kale I generally
don't like spicy foods manaha si guud ama si caadiyaanba anigu uma jeceli cuntada kulkuleel kale generally imika datra generally waa qalad moogtahay waxa weeye waxa meesha laga saarayaa iidaas waxaana loo akhrinayaa generally 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 ma iida lama akhrinayo iidaasa meesha ka maqan marka la akhrinayo normally sida caadiga normaalka I listen to Somali songs normally waxaan dhageystaa heesaha Soomaaliga normally sida caadiga I normally listen to Somali songs waxaan sida caadiga dhageystaa heesaha Soomaaliga maxay strong position ka kaasa strong position ay ku leeyihiin oo aad loo isticmaalaa walow midna khalad ayna ahayn occasionally marmar I go to the cinema occasionally waxaan tagaa shaneemada occasionally marmar I occasionally go to the cinema waa la midun often inta badan often I train in the morning inta badan waxaan tababartaa subaxdii waxaad wada arkaysiin marka qaarkood iyo kooqa ay leeyihiin qaar loo akhrinayo often oo natiida la akhrinaynba I often train in the morning waxaan inta badan aan train gareeyaa ama tababartaa in the morning subaxdii I often marka you cannot know markaad ka aragto qaamuuska aad ka fiiriso habka pronunciationka loo akhrinayo iyaad arkaysaa moogta inay tiiduba ku jirin oo ay meeshu tahay often moogta often regularly si joogta I come to this museum regularly waxaan museumkan u yimaadaa qolkan hidda dhowrka waxaan u yimaadaa regularly si joogta I regularly come to this museum waxaan u yimaadaa museumka ama qolkan hidda dhowrka si joogta sometimes marmar I get up very early sometimes waxaan hurdada ka toosaa macnaha very early horey baan u toosaa sometimes marmar iyo I sometimes get up very early markaysa weaker position oo qaab iska daciif laakiin aan khalad ahayn oo isticmaali karto laakiin markaad tan oo kale isticmaasho ayaa ma jumlada awoodoodu ay weyn tahay lagu leeyahay I get up very early sometimes I sometimes get up very early was akhris iyo macnaheedu waa isku mid laakiin awoodii kala awood weyn usually akhriska oo fiirso usually sida caadiga I enjoy being with children usually waan ku raaxaystaa la joogitaanka caruurta aan la joogayo sida caadiga I usually enjoy waxaan sida caadiga ku raaxaystaa being with children la joogida caruurta aan la joogayo some other adverbs xoogaa kale oo ficil kaabayaal that tell us kuwa inaka inoo sheegaya how often markaysa express ayaa muujinaya the exact number of times inta jeer eed markaysa manaha the exact number of times ma inta jeer ama inta goor maxaan ku dhaha saxda an action happens ay uu ficil dhacayo oo happened ama uu ficil dhaco ama uu dhacay markaysa the exact number of times maxaan ku dhahdaa inta waqti ama jeer saxda an action maxaan ku dhahdaa dhacdo happiness ay dhacdo ama ficil dhaco or happened ama uu dhacay these adverbs marka ficil kaabayaashani are usually placed waxa sida caadiga la dhigaa at the end of the sentence dhammaadka jumlada examples tusaale ahaan this magazinekani ama buuggan markaa jiraydkan toddobaadlaha magazine waa journaalkan caadiga ee soo baxay sida the time ko kale bishii mar la soo baxa ama weekii mar soo baxo kale is published monthly magazinekan is published waxaa la daabacaa monthly markaysa waxaa lagu daabacaa monthly waa bille
bishiiba mar buu soo baxaa. He visits his mother. Wuxuu hooyadii booqdaa once a week. How often does he visit his mother? Yeah. Siduu joogteeyaa booqashada hooyadii. Markaasaa tiri he visits his mother once a week. Hal mar ayuu toddobaadkii booqdaa. I work 5 days a week. Waxaan shaqeeyaa 5 maalmood toddobaadkii. Waxaad ka jawaabaysaa su-aasha ah how often do you work? How often do you work? Then waxaad ku jawaabaysaa I work 5 days a week. I saw that movie 7 times. Waxaan movie-ga daawaday ama filimka aan daawaday 7 times. 7 jeer baan daawaday. Taan ku weydiiyay ka waran how often did you see that film? Kaasaad leedahay I saw that film 7 times. Tiradii aad daawataad haysaaba. Gartay using yet. Isticmaalka in yet baan ka hadlaynaa oo ka dhigan weli. Waa kelmad inta badan aad Ingiriiska loo isticmaalo. Intiina badanna laga yaabaa in aad aragtaan markasta yet is used. Yet waxaa lagu isticmaalaa in questions, su'aalaha and in negative sentences iyo jumladaha diidmada ah to indicate si ay u qeexo ama u sheegto that something that have not happened. Si u sheegto waqtigaas oo maxaan ku inayna wax dhicin. Ma arkaysaa that something that has not happened. Si u sheegto macnaha waqti aan dhicin or may not have happened ama laga yaabaaba aanan dhicinba. But is expected laakiin se la rajaynayo to happen inuu dhaco. It is placed waxaana la dhigaa at the end of the sentence dhammaadka jumlada or after not. Ama se maxaa la dhigaa hadday not ku jirto oo negative tahay after not baa laga dambaysiyaa. Waa markay diidmada tahay. Examples tusaale ahaan in have you finished your work yet? Shaqadaadii weli ma dhamaysay. Simple request for information. Markaysa waa codsi iska caadi oo bas aad warbixin ku doonayso inuu qofkii shaqada dhameeyay in kale. No, not yet. May weli ma dhamayn. May weli ma dhamayn bay noqonaysaa. May weli ma dhamayn. Simple negative answer waa jawaab maxaan ku dhaca caadi oo diidma. They haven't met him. They haven't met him yet. Weli iyaku isaga lamay kulmin. Iyaku lamay kulmin isaga weli. Simple negative statement. Waa jumlad maxaan ku dhaca diidma oo caadi ah. Haven't you finished yet? Weli miyaanad dhamaynin. Haven't you finished yet? Weli miyaanad dhamayn. Expressing surprise. Waa adigi oo la yaaban qofkii inuu weli shaqadii una dhamaynin oo muujinaya maxaan ku dhaca fajac oo kale aad leedahay. Haven't you finished yet? maad weli dhamaynin macnaha waxaad rajaynaysa inuu dhameeyo laakiin markuu dhamayn markaad artay isagoo hawshii wada ayaad saas oo kale u hadashay. Using still isticmaalka still kalmadda la iyaduna weli ka dhigan laakiin habka loo kala isticmaalayaa aad arkayso arki doontaanba iyaduna ay weli tahay. Expresses waxay ka hadashaa marka iyaduna continuity. habkay ku kala duwan waxa weeye yet macnaha waa wax aad rajaynayso inuu dhaco ama laga yaaba ama dhicinba laakiin se lagu wado inuu dhaco. laakiin still waa maxay? Still expresses waxay ka hadashaa continuity moogta socodka inuu macnaha wax socdaan moogta. Continuity macnaha in wixii si joogto ah uu u socdo oo ficilku u furayo. In positive sentences jumladaha positive-ka ayayna ku shaqaysaa. Markaas it's placed waxa la dhigaa and before the main verb ka hor ficilka ayaa laga soo horeysiiyaa and after the auxiliary verbs waxaana laga dambaysiiyaa and auxiliary verbs macnaha waxay ka dhigan tahay markaasi waxay u kala dhaxaynaysaa sidii caadiga ahayd in kalkaalihii auxiliary-gii iyo ficilkiiba u dhaxaynaysaa such as be iyo have might will oo iyaku maxaan ku dhahay kalkaaliyaha noqonaya. If the main verb baa hadiyo jeer lagu yidhi haddii main verbku ficilka meesha ku jiray muhimkii uu yahay to be then place still after markaysa ka dambaysii maxaan ku dhahdaa ficilka to be markaysa rather than before halkaad kaga horreysiin lahayd moogtahay. markaysa to be hadiyo jeer sidaas waaye way ka dambaynaysaa sidii kuwii horeba aan kusoo sharaxnay. In question su'aalaha still goes before the main verb. Still waxay maxaan ku dhahdaa ka hor timaadaa
oo ay ka hor timaadaa ficilka muhiimka ee meesha ku jira. Examples tusaale ahaan, she is still waiting for you, weli way ku sugaysaa. Jim might still want some, Jim laga yaabaa inuu weli waxoogaa doonayo. Do you still work for the BBC, weli BBC da ma u shaqaysaa. Are you still here, meel walba still halkay taalo u fiirsada markay su'aasha tahay ee markayna ahayn. Are you still here, weli ma halkan baad joogtaa. And I am still hungry, weli waan gaajoonayaa. weli gaajadii wayna sii haysaa oo nagama reebin weeyaa cunto yar markaad qofkii siiso haddana weli qofkii uu gaajoonayo. An order of adverbs of time waa nidaamka habka ay u kala nidaamsan yihiin ficil kaabayaasha ka hadlaya waqtiga ka hadlaya, maadaama oo ay saddex aan soo dhigano how long, how often iyo when sida u kala horeynayaan waka pluska la sheegayo. If you need to use, haddaad u baahan tahay inaad isticmaasho more than one adverb of time, in ka badan hal ficil kaabe oo ka hadlaya waqti inaad ku dhex isticmaasho in a sentence jumlad, use them in this order, u isticmaal nidaamkan ay u kala horeeyaan u isticmaal. mar walba waxaa soo horeynaya how long, intii aad wax qabanaysaa soo horeysa. number 2 ku xigaya waxa weeyaan how often, sideed u joogteynaysay. ma arkaysaa wixii ma mar baad qabanaysay, ma laba jeer baad qabanaysay, ma saddex jeer baad qabanaysay, inteed wax qabanaysay, ugu dambeysay xilliga aad qabanaysay marka waqtiga. ma arkaysaa marka saasaa loo sameeyay. bal halkan u fiirso. I work waa bas waa 1 iyo 2 ba halkan ku jira. I work for 5 hours every day, waxaan shaqeeyaa 5 saacadood maalin wali. For 5 days waxay ka jawaabaysaa su'aasha ah and how long. Every day na waxay ka jawaabaysaa ta ah how often. And number 2 iyo 3 baa la soo qaatay. The magazine was published, the magazine waxaa la daabacay weekly last year. sanadkii hore weekly buu ahaa oo toddobaad buu ahaa, toddobaad kasta la daabaci jiray. okay, waa la soo qaatay 2 iyo 3 baa la soo qaatay oo ka kala jawaabayay how often. yaa jaraa'idka la soo daabacayay waa weekly, goorma la soo daabacayay la daabacay last year sanadkii hore. garanay halkan waxaa ku wala jira 1 iyo 3. I was abroad for 2 months last year. waxaan ku maqnaa dibadda for wadanka banaankiisa aan dhahe for 2 months, muddo 2 bilooda last year. waxaa la soo qaatay number 1 oo ka hadlayay how long iyo number 3 oo ka hadlayay maxaan ku dhaha when, goorma, last year. waxaa soo qaatay 1 iyo 2 iyo 3 saddexdiiba waa la wala isticmaal. bal u fiirso. She worked in a hospital ayay ka shaqaysay for 2 days. intee leeb ka shaqaysay for 2 days, 2 maalmood. oo intee oo maalin walba may shaqaynaysay may every week, toddobaad kasta waxay ka shaqaynaysay for 2 days, 2 maalmood. goorma way ahayd xilligay shaqaynaysay last year sanadkii hore. She worked in a hospital bay ka shaqaysay for 2 days, 2 maalmood every week, toddobaad kasta last year sanadkii hore. daawada iyo dhageystaba meelaad joogtaanba waxaan soo gaadhay gabagabadii cashirkeena. waana cashirkii ugu dheeraa ee run ahaantii aan duubo intii aan duubayay cashirada. intii aad la socoteen eed sabirka aad ku dhageysanayseen aad baad u mahadsantihiin. waxaana rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen. waa macalin xasan oo leh maalintu ha nii wacnaato. ciao.